السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada dalab media waxaan idin la wadaagi doonaa maleeshiya beeleed isku hor fadhiya beer xashiish lagu beero oo ku taala gobolka Shabeellaha Hoose. waxa kale oo aad maqli doontaan xogta duqeyn culus oo lala beegsaday guri ay deganayeen oo ay ku shirayeen madax ka tirsanaa kooxaha nabadiidka ah. guriceelna waxa ay dirtay fariin la mid ah tii dhul samareeb. soo dhawaada haddii aad inagu cusub tahay channelka subscribe inoo saar muuqaalka inoo la garay asxaabtaada la wadaag aragtidaadana waxaad inoogu soo gudbisaa qaybta faallada. mahadsanidin. laba maleeshiya beeleed ayaa isku hor fadhiya beer xashiish lagu beero oo ku taala gobolka Shabeellaha Hoose. xiisad u dhaxaysa maleeshiyaad ka soo kala jeeda laba beel ayaa ka taagan beer weyn oo xashiishka lagu beero taas oo ku taala deegaanka Gurshiini ee gobolka Shabeellaha Hoose sida ay ila wareedyo deegaanka ah inoo xaqiijiyeen. maleeshiyaadka isku hor fadhiya beerta ayaa isku haya cidda la wareegaysa gurashada xashiishka xilli muddo bil ah ay ka harsan tahay waqtiga la filayo in dalagaasi la goosto. beerta oo cabirkeeda lagu sheegay ku dhowaad 30 hektar ayaa la sheegay in ay muddooyinkii dambe gacanta ku hayeen maleeshiyaad hubaysan iyadoo dhinac walba uu doonayo inuu kaligiis ka faa'iideysto dhaqaalaha laga filayo xashiishkaasi. ila wareedyada ayaa sheegay in beerta markii hore uu xashiishka ku beeray nin lagu magacaabo Gumac balse markii dambe ay dagaal kula wareegeen maleeshiyaad ka soo jeeda beel kale. maleeshiyaadkaas ayaa tan iyo xilligaas la sheegay in ay maamulayeen beerta hase yeeshee waxaa dhowaan dib ugu soo laabtay maleeshiyaad taageersan ninkii markii hore beeray kuwaas oo doonaya in ay dib ula wareegaan goobta ka hor inta aan la gaarin xilliga gurashada. wararka ayaa intaas ku daraya in labada dhinac ay hadda isku hor fadhiyaan deegaanka taas oo dhalisay cabsi laga qabo in uu halkaasi ka qarxo dagaal beeleed. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ciidamo u dirtay beerta kadib markii ay heshay xog ku saabsan muranka iyo xashiishka lagu beeray goobtaasi. saraakiisha tegay deegaankaasi waxaa ka mid ahaa taliyihii hore ee guutada 14 Oktoobar Cabdiraxiin Maxamed Muunye ka hor inta aan xilka laga qaadin iyo saraakiil kale oo ka kala tirsan ciidamada ka howlgala Janaale iyo Marka. ciidamada ayaa la sheegay in ay burburiyeen qiyaastii 3 hektar oo ka mid ah beerta balse ay ka tageen inta badan dalaga xashiishka. ilaa hadda ma cadda sababta aan loo burburin dhammaan beerta mana jiro war ka soo baxay dowladda federaalka ama saraakiisha ciidamada oo faahfaahinaya howlgalkaasi. warar aynu helnay ayaa sidoo kale sheegaya in saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin degmo lagu eedeeyey in ay ku lug leeyihiin beerta iyo muranka ka taagan. qaar ka mid ah taliyaasha guutada 14 Oktoobar ayaa si gaar ah loogu eedeeyey in ay qayb ka yihiin arrintan inkastoo aysan si madax bannaan u xaqiijin karin eedeymahaasi. deegaanada Gurshiine iyo Janaale iyo dhulka ku teedsan webiga Shabeelle ayaa muddo dheer lagu yaqaanay beerashada dalagyo kala duwan balse waxaa sidoo kale laga soo sheegay beero lagu beero xashiishka. ka hor inta aan kooxaha nabadiidka ah laga saarin qaar ka mid ah deegaanadaas kooxda ayaa la sheegay in ay dhaqaale ka samayn jirtay canshuuraha laga qaado beeraha xashiishka iyo ganacsatada ka shaqaysa. wararka laga helayo Shabeellaha Hoose ayaa sidoo kale sheegaya in xubno ka mid ah ciidamada dowladda lagu eedeeyey in ay ka qayb qaataan qaadista iyo soo gelinta xashiishka magaalada Muqdisho. qayb weyn oo ka mid ah xashiishka lagu isticmaalo Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka ayaa la rumaysan yahay in uu ka soo go'o gobolka Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo shabakado ay ku lug leeyihiin maleeshiyaad ganacsato iyo saraakiil ciidan oo lagu eedeeyo
in ay ka shaqeeyaan gaarsiinta suuqyada. dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed weli kama aysan hadlin xiisadda ka taagan beerta Gurshiini iyo eedeymaha ku saabsan saraakiisha lagu sheegay in ay ku lug leeyihiin. dhinaca kale, wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay duqeymo culus ka fuliyeen deegaanka Biya Cadde oo ay weli gacanta ku hayaan maleeshiyaad ka tirsan kooxaha nabadiidka ah. duqeymo isxigxigay ayaa ka dhacay gudaha deegaanka iyada oo khasaare lixaad lagu gaarsiiyey xubno ka tirsan kooxaha nabadiidka ah sida ay inoo xaqiijiyeen ilawareedyo xilkas ah. weerarka koowaad ayaa lagu beegsaday guri uu shir uga socday horjoogayaal sarsare oo ka tirsanaa kooxaha nabadiidka ah ayna ku jireen saraakiil ajaaniib ah kuwaas oo la sheegay in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen duqaynta lala eegtay. sidoo kale waxaa la gubay ilaa 3 gaari oo nuuca dagaalka ah oo tiilay guriga uu shirka uga socday madaxda ka tirsanaa kooxaha nabadiidka ah sida ay sheegeen saraakiil sirdoon oo xog horudhaca ka bixiyey weerarkaasi. duqaynta labaad oo iyana ahayd bartilmaameed ayaa lala beegsaday maleeshiya kale oo gurmad ku yimid kuwaas oo la soo wariyey in khasaare kale lagu gaarsiiyo goobtaasi. dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah oo inta badan isku kaashada weerarada ka dhanka ah ee dhinaca cirka ayaa la filayaa inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkan iyo khasaaraha rasmiga ah ee lagu gaarsiiyey kooxaha nabadiidka ah. xaaladda deegaanka Biya Cadde ayaa ah mid kacsan iyada oo laga dareemayo raadka duqeymaha culus ee ka dhacay deegaankaasi. sidoo kale waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo cabsi ku beeray shacabka deegaanka. maalmihii u dambeeyey deegaanada maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa ka socday guluf ka dhan ah kooxaha nabadiidka ah iyada oo dib loo bilaabay howlgalladii ka socday labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. guud ahaan daawadayaal warbixinteennii intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusub tahay inaad janaalka subscribe inoo saarto, muuqaalka inoo like garayso, asxaabtaada la wadaagto, aragtidaadana aad inoogu soo gudbisa qaybta faallada. mahadsanidin.